nabigu wuxuu nooga sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam inaad maqasheenna waa laga yaabaa inaydan maqalo caawa idinku cusub tahayna waa laga yaabaa weligeen ma maqasheen maxkamad loo dhisay oo loo sameeyey oo qaadi kala xukumay laba qof oo isku ku haysta shaygan adaale iyo adaale ma maqasheen maxaakimta adduunkoo dhan waxay u dhisan yihiin inay kala fasliyaan oo kala saaraan laba qof oo isku haysta arrin tan oo kale la isku haystaa biyaha baa la isku haystaa mid wuxuu leeyahay anaa leh midna muxuu leeyahay malihida anaa leh marka qaadi baa imanayo oo arrintii baadhayo oo waxay nihayadii noqonaysaa inuu mid u xukumo kan kalena uu yiraahdo iska tag waxaad leedahay ma jiraan maxkamad kasta arrintaas ay u dhisantahay arrintu say doontaba ha noqoto ama taa ha noqoto ama xuquuq maaliya ha noqoto ama cirda ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto waxay doontaba ha noqoto ama damam laakiin waa un laba isqabsaday xaqii lagu kala saaray lii hada lii wa hada lii nabigu min fawaa'id aliimaani wa thamaraatihi wuxuu noo sheegay laba nin inay isku qabsadeen shay uu mid walba leeyahay adigaa leh iyo adigaa leh oo arrintoodii ay maxkamad gaadhay fii xadiidin saxiix nin baa dhul lahaa dhulkii uu lahaa buu mid kale ka iibiyey kii dhulka iibsaday markuu bilaabay inuu dhulkii hagaajisto oo uu qodaalkii bilaabay ayuu wuxuu ka helay kanzi dahab ah kanzi waa kayd weyn weeye oo aad u fara badan weeye walaa rubamaa yasil ilaa aalaaf alkilogaramaat yani aad u badan weeye yani isagoo faqiirahoo waxba aan ahayn oo dhul yar iska leh ayuu mar qura wuxuu fii luqati casrina isu bedelay milyoneer aad u fara badan hadduu qaato yani walaakin waa saaxibu iimaan marka iimaankiisii thamaratu iimaani maxay keentay inuu yidhaa maya alla ilaahay dahabkan anigu malihiye ninkii dhulka lahaa ayaa iskale waa soo qaaday jaratu dahabkii isagoo wada ayuu ninkii dhulka uu ka iibsaday buu u keenay wuxuu yidhi fulaanow dhulkii aan kaa iibsaday baan ka helay kanzigan dahabka qaadaadaa iska leh kiina waa saaxibu iimaan ma odhan wallahi waa runtaa waa niloobe anaa maaragtay waa mahadsan tahay ma odhanine wuxuu yidhi maya dahabkan aad sheegayso haddaaba ii kowa ma maqal mana ogeyn ana bictuka alarda wamaa fiiha inay dahab ku jiro in kalena uma ogeyna adaa lehe qaado war ma aha melihi anugu shaqana ku melihi adaa lehe qaado labadii nin waa isqabsadeen haadaa lak wa haadaa lak isqabsashadoodii waxay gaadhay maxkamad lanna nebiga saasuu ka tacbiiriyay wuxuu yidhi fataxaakamaa taxaakama maxaa waaye ma hiya maa taxaakama maxkamaday aadeen wey maxkamaddu geed hoostiis bay noqon kartaa maxkamaddu ninay u tageenana kala xukun dhahayn bay noqon kartaa nin bay u tageen ninkay u tageenna waa saaxibu iimaan ma odhan wallaahi arrintu hadday saas tahay dahabkan waa ma garanaysaa waa hanti qaran weeye iska socda idinku ma uusan orane qadiyadii buu dhegaystay horta nin walbaba qadiyadiis buu sheegay saas ahaa wuxuu yidhi horta wax caruura ma leedihiin arrintiiba waa ka baxay inuu kala xukumo waa ka baxay wuxuu yidhi wax caruura ma dhasheen haa anigu wiil baan dhalay adiguna gabar baan dhalay wiil baad dhashay adna gabar baa dhashay soo maahaa alalehay gabadhaa iyo wiilkaa isu guuriya dahabkaana ku nafaqeeya oo ku infaaqeeya waxna sadaqaysta wadhaba taga iska taga